kaale sirta rootiga jileec kaaga dhigaysan rabo inaan kaa dabageeyo ka faa'iideyso quraac isku dheelitiran rooti iyo beer ayaan samaysanaynaa. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xabto idin salaamay waa walaashin farxiyo kushiin mar kale iyo muuqaal cusub. soo dhawaada ka faa'iideysta muuqaalka haddii idin soo gaaro bilaa shuruud like noo saar si aan kun like u gaarno waa mahadsantiin. marka waxaa soo qaatay koob biyo iyo koob caano ada qiyaasta aad samaysanaysid ay ku xiran tahay. koob biyo iyo koob caano oo qandac ah kadib qaado waxaan ku daraa leebata ah waxaan ku darsanaynaa baking soda. sirta waa baking soda rootiga jileecu kaaga dhigayaa kaale iska arag si qurux badan kugu soo baxa insha Allah. wax yar oo badneena ku daraysaa kadib waxaan ku darayaa wax yar oo cusbo ah baking soda ha ka badinin kadib ilaa 2 qaado sokor ah. sokorta adaa ku badsan karo adaa ku yareysan karo. intaas kadib waxaan ku darayaa vanilo qaadada hafkeeda ama heel shiidan ayaa ku bedelan kartaa. kadib waa isku qasaysaa alaabtan waxaan ku daraa hal xabo ukunta hadii ay ku dhibayso waad ka dhaafi kartaa qasab ma ahan. intaas kadib waxaan ku soo darayaa 2 qaado oo subag ah kadib waxaan ku soo darayaa 3 koob iyo bar oo bur ah kadibna si fiican u soo qasayaa. waxaan rabaa inaan ku qaso makiinada hadaa doonto gacantaada ku qasi kartaa muhiimadu xitaa bur kale inaad si fiican u qastid. asxaabtigu cusub qalbi furan iyo niyad saafi ah soo dhawaada. waan dhigaynaa intuu kasoo qamiirayo ugu yaraan 30 daqiiqo. dhinaca kaleeto haddii aad raadinaysay qaxwo ama bun caraf badan ramadaan soo dhawaada ku anfici doona. runaanta aniga aad ayaan uga helay. telefoon number shaashada kaaga muuqdo wac gurigaada lagu keenayaa waad ka heli doontaa. dhinaca kaleeto burku waa uu noo soo qamiiray saa ujeedaanba. hadda waxaan rabaa inaan soo habeeyo 2 saxan camal aan rabaa inaan kasoo dhigo. marka hore waan soo gogoynayaa saas ayaan soo gogoynayaa qiyaastaas ku filan. burka waxaa waay rootiga haddii aad rabtid rooti qurux badan oo kaal arag inuu kuu noqdo waxaan ku iraaday waa inaad sugtid inuu 2 mar soo qamiiro. haddii si fiican u soo qamiirin oo karisid waxaa asaga dhan buru ka noqonaya. waa soo duuduubay marka hore waa fidinaysaa kadib waa soo duuduubaysaa kadibna halkaas ayaa isaga dhijinaysaa si fiican oo isugu dhago. alaabta markaasaan u habaysid waad dhigaysaa ugu yaraan 40 daqiiqo ama 1 saac dhigaysaa. markaad dhigaysidna waa inaad bac qafiif afka ka saartid. kan waxaan ka dhigaysaa ujeedaama 5 xabo 4 xabo ayaan soo saaray xabadii shanaad soo dhigayaa. saxankii koowaad saan ayuu ku soo baxay halkaas ay isaga dhijisay hoos ayaa u dhigaysaa ugu yaraan saacad ama 40 daqiiqo ayaa dhigaysaa. saxanka labaadna sidoo kaleeto saxanka labaad waxaan ka dhigay 3 xabo oo kaliya. saddexdan xabo oo waaweyn ayaan ka dhigay 40 daqiiqo ayaan dhigay. markuu soo qamiiray waxaan soo qaatay sakiin. bismillaahi raxmaani raxiim. waad goynaysaa macnaha waad jeexaysaa si fiican ayaa u jeexaysaa ilaa gudaha ma ahan laakiin qaybta kore ayaa ka jeexaysaa. markaan saa u jeexjeexo foornada kulul ayaa gelinaysaa. foornada waxa u geynaysaa 180 dabkana kor iyo hoos wax ukun ama marinin saa ujeedaanba asoo saana gelinaynaa foornada. saxankii hore sheekadiisa sidii kusoo dhamaatay ma fahanteen. saxanka labaad la idin la soo wadaagay. intaas kadib waxaan u dhaafay 25 daqiiqo dabkana kor iyo hoos 180 u geynaysaa. waa kaas soo ku soo baxay. waaw maasha Allah tabaarakallah. war lagama sheekeen karaan ku dhahay inaba caadi ma ahan. haddii rooti mar badan intaad samaysay gudihiisa cajiin camal uu ka noqday waxaa waay si fiican umuusan soo qamiirin. qasitaankana jilci baking soda ama karbonaatigana ku darso. waa kaasaan ku dhahay waa haydigan lagama sheekeen karo maasha Allah tabaarakallah. dhinaca kale waxaan samaysanaynaa beergeel beergeel ayaan samaysanaynaa. ugu dambeyntii beerka geelna saan ayuu ku soo baxay. haddii ilaa halkan aad soo gaarto waxaan ka codsanayaa inaad like noo saartid. marka wax soo qaatay beergeel qudaar kurus kurus ana horta kurus ma jeclin fahanteen. runaanti kurus ana cunto cunaa baruurta afka da ii gashay waxaan ku dhahay maalintaas oo dhan waxaa laga yaabaa inaan cunto afka saarin laakiin qof jecel rabo inuu sameeyo. waxaan sameynayaa marka hore soo jarjaray basashii kadib barbarooni gaduudan soo jarjaray barbarooni cagaar qudaarta jecesho dhan u soo qaado. intaas kadib kuruskii ama baruurtiisa u taqaaniinba waa soo gogoynaynaa. kadib beerkan soo jarjarayaa waxaaga sii diyaarso saa idin sheegayba alaabtaada dhan waa la sii diyaarsadaa. wixii ku diyaarsan digsiga dabka saaro. digsiga dabka saaray saliidan loo isticmaal rabo fahanteen. kuruska geela loo isticmaal rabaa kastoo marka hore waa dhalaalinaysaa. dadka kuruska jecel waxaa iska dhalaalay marka hore saliid dhan u baahnid asaa saliid keenaayo. saliida markuu keeno kadib beerka ku soo ridaysaa. beerkan asaga dhanba 3 daqiiqo bas dabka lagu hayn rabo fahanteen ama 2 daqiiqo aad looma bisleeyo.
rootigaaga canjeeladaadii waxaaga waa lasii diyaarsadaa kadib beerka ugu dambeysay waayo beerku wuxuu ku fiican yahay dabka soo qaada hore leh ka cunfaanti haddii aad dhigtid kastoo uu ka adkaanaya anigana beerka jileecan ku jeclahay kan laakiin ani afkaama saarin cunfaanti baruurtaas mugoom ku haysti xawaajiga jecesha ku soo darso qudaarta dhan jug ku soo sii intaas kadib 3 daqiiqo ayaan dabka ku hay intaan walwalaaqayle waa kaasa maasha Allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo rootiga dhaxgasha canjeeladaada ku cun si aan kun like u gaarno like noo saar asxaabtiin u sheer garee oo kuma santin daawashadiina waxaan rajaynayaa ka faa'iideen mac salaam